iyo barnaamijkii talooyinka gaagaaban ee halmaal waxaan caawa ku qaada dhigi doonaa wax yar barbaarinta ubadka gaar ahaan marka qurbaha la joogo waxaa marba marka ka dambaysa soo badanaya Soomaalida aadka u dhalinta yar ee qurbaha ubadka ku korinaya inkastoo jiraan dad waaweyn oo iyagu horeyba ugu korinayay taasoo keeni karta mararka qaarkood faa'iidooyin iyo isbedel dhinaca nolosha ah waxaa kaloo nasiib darro noqday dhibaatooyin isa soo taraya sida ilmaha oo qaarkood laga qaato kadib markii dhibaatooyin lagu eedeeyay in aanay awoodin in ay koriyaan ubadkooga waana arrin murugo iyo xanuun u leh ilmaha iyo waalidkiiba inagoo taas ka duulayna markaa waa in la helo dad arrimahaas ka baraarujiya bulshada kana wada hadla bulshaduna ay arrimahaas si weyn iyadu uga hadasho waxaan caawa markaa in yar oo kooban ka hadli doonaa waalidka ilmaha qurbaha ku korinaya gaar ahaan ilmaha ugu horeeya in qof bani aadama la barbaariyo lana koriyo waa arrin aan sahlanayn waxa habboon marka hore inta aanad noqon waalid aabbe ama hooyo waa in aad diyaar u tahay ama aad haysato tababar sida ilma loo koriyo reer loo dhaqo aqoontuna waa muhiim ilmuhu waa deeq eebba ku siiyey waa nimcad waa mas'uuliyad aakhiro iyo adduunba lagu weydiin doono sidii aad ka yeeshay ubadkaagii waxaan is xasuusinaynaa markaa waxyaabaha dhowrka ah ee waalidku in uu sameeyo ay tahay waa in marka hore waalidku doorto qof mas'uul ah oo ilmaha la korinaya waa qof aad ku dooratay akhlaaq wanaag runta uu sheego been ka fog iyo waxyaabaha qofka bini aadmiga ee wanaagsan lagu yaqaano si miisaan isku dheelitiran gurigu u yeesho waxaad dhici karta haddii aad tahay hooyo keligeeda oo ilmaha keligeed korinaysa in uu miisaanku ciiro marka aabba la waayo hadhow ilmaha dhaawac baa gaadhaya aanu ka soo kabmin lacag iyo daaro dhaadheer oo dhisataa macno weyn kuu samayn mayso haddii maanta ilmahaagiba daayac yahay ama dad kale qaateen isku diyaari markaa barbaarinta ilmahaaga adiga ka mas'uula waa inaad urursataa ilmaha ka hor inta aanad dhalin wixii agaba ee hooyada iyo ilmuhuba u baahan yihiin tusaale dharka qaabka naasnuujinta caafimaadka halku seexanayo buugaag aad wax ka barato sidoo kale aabbuhuna waa in uu isku diyaariyo dhankiisa waxa looga baahan yahay in uu taageero haweenadiisa tusaale ahaan waa in uu soo qaban karo ama uu sii diyaarin karo wixii qalab farsamo ah sida kursiga ilmaha gaadhiga lagu riixayo markuu dabadda loo saarayo ama marka gacanta lagu wado ilmaha waa in uu kursiga baabuurka ilmaha iyo wixii farsamaha iyo qolkiisa oo kale u diyaarin karayo waa in uu u dhammaystiri karayo wixii farsamo ah ee aanay dumarku ku wanaagsanayn ee qofka waalidku ku wanaagsan yahay dabcan isaguna waxaa loo baahan yahay inuu akhristo buugaagta tarbiyadda iyo ilmaha sida loo koriyo waayo waxaan samada kaagama soo dhacayaan waa wax adduunyada inta aad ku nooshahay aad samaynayso buugaagtina adduunyaday ku yaalaan cilmigana adduunyadu yaala ka faa'iideyso dadka weydii hana ka xishoon in aad qof bilaadan ama qof waalida aad weydiiso halku ku jabay si aad uga weecato ogow markaad ilmaha dhasho wax waliba way isbedelayaan noloshaada waxa laga rabaa in aad heegan noqoto feejignaato wax walba aad ogaato waayo waxaad ka mas'uul noqotay qof nool ilma yaro sabi ah oo aan caqligiisi lahayn ayaa adiga hiil iyo hooba kaaga baahan waa mas'uuliyad weyn waxaan dhahdaa mararka qaar askariga oo kale heegan buu ku jiraa askari oo kala tahay waayo ilmihiinu dab ku dhaco ilmihiina wax ku dhacaan adiga hadhow ka mas'uula laga aqbali maayo telefoon baan ku hadlayo ilmihiina waxbaa ku dhacay inagoo taas ka duulayna markaa darxumo ka ilaali gaajo iyo baahi ha ku dilin dhar nadiifa kula dadaal ilmahaaga u ducee raxmadda tus kana ilaali inaad caydo iyo habaar jeclow waa inuu adiga kaa arko dhaqanka wanaagsan waxaa la bari doonaa siduu cunnada u cunayo sida suuliga ama musqusha loo galo loogana soo baxo ayaa la barayaa akhlaaqda wanaagsan sida loo seexdo sida loo tooso sida dadka waaweyn iyo dadka yaryarba loola hadlo sida waalidada iyo walaalahaba loo tixgeliyo waalidada iyo walaaluhuba iyaguba xaq bay leeyihiin waxa uu leeyahay in aad fahansiiso iyo dadka kale waxa ay leeyihiin oo wax ay dad kale leeyihiin yaanu ka boobin yaanu kaga dhegin u sheeg markaa wixii xeera in runta lagu dhaqmo beenta laga fogaado adiguna ku dhaqan
sida dadka kale dhaqannada kala duwan loola dhaqmo adigu baro isagana bar in aad adigu qudhaado maalin walba noqoto sida ilmuhu wax u baranayo si leeg adiguna aad u barato oo qofka bini'aadmigu wuxuu u baahan yahay intuu nool yahay inuu maalin walba wax akhriyo caqligiisa kobciyo oo uu maalin walba isagu wax barto si uu ilmahana u caawin karo oo uu wax u bari karo iyo buugaagta adeegsado oo uu xeerarka barto rukunada u barto nolosha u barto caqiido uu isagu yeesho si ilmihiisuna uu caqiido u yeesho waajibaadka iskuulka ilmahaaga in la geeyo lagana soo celiyaa waa muhiim waxbarashadiisa laga warhayo guriga wax loogu dhigo qarash uu kaaga baxo dugsi aad geyso ilmahaagu ku wanaagsanaanayaaye waxba kagama dhacayaan waa in aad markaa wanaag fara badan aad ka rajaysaa isaga oo jeclaataa adiguna aad la dadaashaa waxaan ku soo koobayaa caawa markaa wax akhri wax baro wax weydii waalidada kalena haddii aad awooddo kala tasho weydii waalidada iyo dadkii kaa waaweynaa oo weydii meelaha bulshadu isugu timaado waxaad akhrisataa buugaagta wanaagsan ee cilmiga barbaarinta ubadka intaas ayaan caawa ku soo koobayaa barnaamijkeennii talooyinka gaagaaban ee halmaal tan iyo is arag maqalkeenna dambe waxaan dhammaantayo idinkaga tegaynaa meel kastoo joogtaanba nabadgelyo